haddaan imaado noocyada ay bawaasiirtu tahay waxay u kala baxdaa laba nooc marka hore waa mid adag waa tan xubnaha barari xididada weynaaday ee dibadda duburta ama gudahaba malowdka ma gasha waa taas waa ta adag baa la yiraahdaa iyo mid hoor leh waa tan hoorka dareere leh dhiig iyo dheecaan oo uu caabaq bush ka dhalatay taasuna waa ta bushka ka dhalata ee caabaqa yeelata marka dareer bay keentay iyo hoor iyo wax dareero oo socda sidoo kale waxaan oran karnaa waa mid gudaha ah iyo mid dibadda internal and external hemorrhoids taasna waa ay tahay laakiin marka hore labadaas ay kala baxdaa laakiin mid dibadda iyo mid gudaha ah way yeelataa taa gudaha waa hadii jeeral keenta mararka qaar kood in dhiig marka godka la galo uu dhiig yimaado markuu qofku ka istijoodana way ka oo istaaga laakiin waxa jira cases badan wala saddex case oo naga soo maray oo suuqa iyagoo maray iyagoo sibraha dhiig ku daayo ay arkeen waa marka ay isku dhawaadaan islisaan labadan dhinac ay isku dhawaadaan ee dhexda fadhiisato ta kalena waxa weeye tan dibadda waa kulmay soo ridaa argagaxeed ay leedahay waa TV-gan idinka tusi doonaa waxyaalaha ha ku sii xumaato gaalada oo nimankan aan cunin waxaan cunayna doofaarkii baleedkiina cunaya marka astaamaheedu saasay ku kala baxaan noocyadeedu haddaba astaamaheeda maxaa kamid ah waxa kamid ah xididda weynaaday oo kulma la moodo oo dhiig fadhiistay waa dhiig fadhiya waxa weeye dhiig baa fadhiya swollen tissues ama dilated veins kulmahaas oo isugu jira kuwa damqada kulmaha dibadda waxa jira qaar marka tuujiso ma damqadaan qaarna fartaba ma saari kartid labada nooc ay inoo si kala baxdaa oo qofku ma fadhiisan karo oo fadhigaba uu ka caaga qaarkood marka calooshiis taaganta istaagto waxa hadii jeeral la arkaa saxaro yar oo saala ah la moodo oo markuu ducdo soo dhacdo waa marka calooshu ay taagan tahay hadii ay jilicsan tahay calooshu waxa la arkaa iyana in la arko saxaro yar oo aad model oo yar yar googo oo aad model xuluufay oo midil lagu xuluufay ba iyana hadii jeeral la timaada labada noocba way leedahay ducashada badan oo marar keenta malwadka oo dhacda in ay cidhiidhi gasho oo dabeetana saxaradu ay soo jeexdo oo dabeetana uu dhiig yimaado agdhaar isku jira xididdo weynaaday oo barar weheliyo oo marinka gudaha gufeeya taasoo ku keento ciijinta saxarada oo qofku ducasho badan yeesho dhiig fuulma mararka qowraysan horeba u sheegay oo xilliga xaajoodka ku eg inkastoo ay jirto marar ay keento ducasho ay keento in sibraha dhiig ka dhaco ama ay keento qofku kula fadhiyeen dabadu casaato dhiig ku yimaado hoor dareera oo ur iyo sunnad leh waa kolka ay bushowdo ay infected noqoto hoor bay keentaa kaasoo isku jira caabaq dhiig iyo dhidhsan horeba u sheegay hamada waa tow daran inkii jira wuxuu yidhi cimriga jab وعاوي عاجزكا غلي باشو waxay tilmaamaysaa gabaygaas inuu berigi hore dadka ayeenay hore Soomaalida bawaasiirta ku dhici jirtay laakiin si aanay dareensanayn marka hamada waxbay yeeshaa ama laad bay noqotaa laga yaabo inuu qofku guurso loogu taagba waayo war hebel oo guurso anaga tag oo gacmaha ku soo dadka loogu taag waayo inuu guurso waxbay dareenkii ayay wax yeeshay oo dishay isku soo wada duubo halkii uu dareed iyo caajisku duqu sheegay cimri jab uu ku daliilshay hamadoo dirgan weydo tahliwa ku dambaysa nafsadoo dabac keenta dooqa oo nacasoobo qalbi jab daawo la yeesha man hadii xagaana aad weydo dareenkii waxa imanaya inay qofku daawo finish ba noqdo okay waxyaalaha kale lagu dareemi karo waxa kamid ah oo astaamadeeda kamid ah cuncun ay keento mararka qaarkood qofku moodo in xidabada kaga jiro wahsi iyo tamarda hore jirka qaar ka dambe ka keenta kabuubiyo barida uu ka dareemo markuu in doora fadhiyo ama markuu xitaa istaago inuu ka dareemo kabuubiyo qaar ka dambe